كلوني مدني waxaan ku nimid annaga arka xaaladaha qoyanaha oo fariin bulshada Soomaaliland iyo kala qoyanada ka socoto soo qaatay xaaladii khilaafkii wakiilada marka qoraal baan ugu soo gudbinaynaa annaga mabaadiida bulshada Soomaaliland iyo milooyinkiisa ka bilownay marka waxaan doonaynaa inaan meel gudbo qoraalkaas بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي سيد أرجو نوع أنا يقول سبي هاي وأقولي هني اللي يروح بلام يعمل يقول لي قرار كان واحد كتير ما يعني شيء إن كسر بيرام أرجو كيف هذا أنت هوش بعضمانك كتير هذا الجودي أي نوت بي بلاد بوتي تجوي السبانينا فأقولنا يبي يرجو أبوانا اللي تركه أو يرجعوني هتراوي حسن جني تربي شاعر يطعم يروى مكانه مكانون intellectual ka guriga inta badan xagee jiray dad culamaa iyo koofiyad marka aad u soo dhaweeyna waxaan jecelahay in hawshu qolayka hore madayna soo wareystaan anagu ergeediina waa waxaan warbaahinta u sheegaynaa wadaweydeen gudoomiyaha golaha wakiilada la soo kulanay horteeda waxaan la kulanay guddigii heshiisiinta labada golaha wakiiladu saaray ee labada dhinac ahaa waxaa kaloo la kulanay guddigii guurta dhaxaynta ee uu ka mid ahaa Xaaji Cabdi Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cali odayaashii oo dhan warqad qoraal ah sunna fariinta bulshada Soomaaliland iyo ergada aqoonyahanka ay soo xilqaatay dhaxaynta khilaafka golaha wakiilada la yiraahdo mabaadiida guud ee bulshada Soomaaliland leedahay iyo milooyinka ay sanayso himilooyinka Soomaaliland gaadhay ee la doonayo inay yaashato oo aan xorriyad buuxda ay gaadhiyeen nidaam dawladeed iyo nabadgelyo inta ay yaashato xorriyad sheegaya in gudoomiyuhu naga aqbalay qodobkii aan soo jeedinay oo ahaa sida halkan ku qoran ee gunaanadka arrintan anigu idin ku mari doono waxa weeye in dhammaan mooshinadii golaha la hor keenay iyo kuwii ku soo foolka lahaa la joojiyo in la hor keenay mooshin cusub kaasoo sheegaya in maamuuska xayuubintii labada gudoomiye ku xigeen laga dhigay 55 ergadu waxay si adag u diidan tahay inay waaxda xukuumaddu faragelin iyo ku samayso hawlaha waaxda sharci dejinta waxa kale oo ay ergadu ka soo horjeedaa in kursiga gudoomiyaha wakiilada maamuus ka xayuubintiisa 24 saacadood laga dhigo